damiirka iyo dadnimaduba waa deeq uu Rabbi bixiyo si qofku u yeesho damqasho waxa loo naxariisanayana waxaa ka mid ah insaanka iyo xayawaanka labadaas oo alla ifka ku beeray si ay ugu noolaadaan halkan waxa indaab weyn oo ku yaala meel u dhow deegaanka siinka dheer ee duleedka Muqdisho waxa ku xareysan tiro ku dhow kun neef oo lo ah gaajo iyo haraad ayaa lagu dilay xoolahan sida ka muuqata muuqaalka arrinta xanuunka leh waxa ay tahay in xooluhu baahi darteed ay isku cunayaan kadib markii la xanaaneyn waayay oo wax ay cunaan iyo cabaanba ay waayeen sidoo kale isla xeradan waxaa ku dhex yaala xabaal wadareedyo lagu aaso kolka ay dhintaan waxaa sidoo kale naloo sheegay in ay xoolahan leedahay gabadh ajnabi ah oo u dhalatay dalka Masar sida dad ogaal ay noo sheegeen Sacuudiga ayaa loo ganacsi geeyay kol hore xoolahan dib ayaa loo soo celiyay meeshan iyo dhowr meelood oo kale ayay ku jiraan baana lagu yiri sida tekada Muqdisho iyo maxjarka dhowr qofood oo aan xog wareysi ugu tagnay waxa ay noo sheegeen in loogu talagalay in fariin guracan laga gudbiyo xoolaha Soomaaliyeed si aan loogu iib geynin dalalka Carbeed oo iyagu u badan iibsashada xoolaha Soomaaliya sitaas la mid ah waxa ay qaar ka mid ah dadka ay noo sheegeen in dadka wakiilada ah ay ku jiraan oo ay degan yihiin hoteelada ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho ayna indhaha ka xirteen xoolahan meesha ku baaba'aya oo iyagu ka dambeeyay in xayndaabkan lagu xiro haddaba qaar ka mid ah dadkii arrintan qayladhaanta ah ka muujiyay oo si dhowna ula socday arrintan ayaan kula kulanay halkan waxayna la wadaagayaan dhibtay jirtay cidda dayacday xoolahan meesha la isaga xirtay salaatu salaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam aniga waxaan ahay mas'uul ka tirsan gobolka Banaadir la taliyaha barasaabka gobolka dhinaca arrimaha bulshada arrintan shalay ay soo gaartay in dhibaatadan ay meeshan ka jirto kadibna saaka ayaa ku soo baxay inaga rag mas'uuliyiin oo kale waxaan aragnaa wixii naloo sheegayay iyo waxaanan kuryoom inay meesha ka jiraan wali noloshana ma aanan arkin bahaayin xoolo ah oo ayaga naf iska dayayo iscunay indhahana ma aanan saarin musiibadaani musiibo ku ekaanaysa xaradan aan dhex joogno ma aha musiibo Soomaaliya oo dhan camiimaysa waaye sababtoo ah makhluuqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la cadib Ilaahay ma ogola haweeney ayaa diga baashi mukulaal xirtay oo ay cuntadii ay banaanka ka doonaysay ka joojisay iyaduna aan cunasiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku cadaabay in marka makhluuq intaas leeg oo xayawaana inta xarar la isugu keeno albaabka ganjeel lagu xiro gacan ay maanta dhagax iyo ciid iyo ayaga naftiga iscunayaan musiibada ka dhalan kartay waa dareemi kartaa intay la agtay inaga ma fahmi karna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa fahmi kara anigu waxaan ahaa qolada balka keento maalin kasta balkeen si leeyahay waa ku gurmugoay meesha tan waxa iga maqan lacag oo dhan hadii ugu yartay $20,000 xoolahan anagu runtii waxaan ku leenahay lacag warbixinteeda guud waa leeysiiyay ciidda leh waa leeysiiyay anagu hajar buuqeeyga dadkan meesha hooganaya waxaan ku nigay lacagayoogi aan ku lahayn xoolaha la siiyay waxaan u qaybsanay qayb lacagayoogi baaqi xoolaha ku ahayd xoolahan wallahi waad aragtaanin loodan waxa ku jirta muddo kulli badda ka soo degtay ay ka soo noqotay badda muddo waxaan malaynayaa ilaa bil iyo bar inay tahay muddada ay kulli halkan ku jirtona waa taqriiban 20 casho waad aragtaan iyadana sameydkii iyo tan tacbaanka iyo sida isu dhaxtaal waxa ku dhacday cudur iyo cunno la'aan baa ku dhacday marka dhibtaas aad aragtaan baa ka jirta abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure iyo Generaal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade oo arrintan qayladhaanta ah ku baxay ayaa si kooban uga hadlay waxa ay fariin u direen madaxda dawladda oo iyagu hooshoodii gabay maadaama aanay warba u haynin duruufaha dadka haysta maanta waxaan arkayaa oo indhaheenu qabtaan wixii ugu xumay noloshayda inaan arko ayaan maanta ag taaganahay waxaan aragnaa xoolihii Soomaaliyeed
oo maxaabiis laga dhigay oo garaash lagu xareeyey ee la yidhi maxaabiis waaye ee iscunaya meydkoodii iscunaya ayaan aragnaa inta dhimatay iyo inta noolna kalama yara waa kumayaal loo gaaraysa oo haddii alla guruna la yidhi sacuudiya laga soo celiyey waxaa la leeyahay dad masaariya ayaa gatay oo soo celiyey kadibna meeshaan maxaabiis uga dhigay oo lo'daan waa xiran tahay ayaa la yidhi waxaa la ii sheegay ilaa 3 garaash inay ku jiraan marka arrintan waxaan aaminsanahay waa marka koowaad waa arrin lagu dabar gooynayo xoolaha Soomaalida marka labaadna haddii alla guruna waa arrin lagu xasuuqayo xoolaha Soomaalida iskale meeshaan aniga arrintan xalay baa la ii sheegay runtii wax la qaadan karo oo jira inay ilama ahayn aniga ilaa ma indhahaygu arkeen ilama ahayn aniga taariikhda intaan noolaa iyo intaan maqlana xoola maxaabiisa ma aanan arag mana maqal laakiin dad maxaabiisa waan maqal waxaad arkaysaan xoola cuna waxaad arkaysaan xoolahan meeshaan ku baaba'ay dowladda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh musharaxiinta xilka doona madaxda dalka xildhibaanada qaranka Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa meeshaan masiiba ka taagan in xoolahan loo soo gurmado waxaan maanta meesha ku soo aragnay waxa ay ka turjumaysaa dal iyo dad aan warba isu hayn wasaaradihii shaqadooda ahaydna waxa ay ku mashquuleen xiraadis taasi oo ku muujinaysa dayacaad weyn oo dalka ka jirta maalinta qiyaamahana in uu isla xisaabtan jiro malahayga in ay cidimoog tahayna u malayn maayo Idruus Maxamuud Iimaan Jubaland TV Muqdisho